shirkani jaraa'id ay si wada jir ugu qabteen xarunta gobolka Togdheer maamulka gobolka ka degmada Birco taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Cuqaal odayaal ka soo jeeda 40 eedeysan ee ku eedeysnaa inay dileen in xoolo dhaqatada oo habeen dhaweyd lagu dilay duleedka koonfureed ee magaalada Birco ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen dableydaasi 40 eedeysan ee gacanta ku soo dhigeen booliska gobolka Togdheer oo kaashanaya Cuqaasha ee waxgaradka ay ka soo jeedaan eedeysanayaashani ayaa waxay si wada jir uga warameen habkii ay u soo qabteen taasi ay hurmud ka ahaayeen maayirka Birco xildhibaan Mubaarak Bidhi taliyaha qaybeedka booliska ciidanka booliska ee gobolka iyo odayaasha iyo waxgaradkii la hawlanaa waxaan u mahadnaqayaa marka hore ilaahay noo fududeeyay in hawlgalkii aanu ku baxnay 40 dilkaa geystay taariikhdu markay ahayd 16 bisha taliyaha qaybta gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Axmed Guutaale oo runtii isagu aan oran karo ku suntay guushan inta leegnaya wanimayo hadda idinka tini haddaan aniga hay hadday tuuleeykanaba dadka caynkaas oo kala ayaan qarin oo aanu isu dhibno cumaamada qaarayna kaga dhace oo aanu ugu badheeyay inaan ama dhalal ku gaadhno ama geeridayada laga soo qaado la iskama qaban nin dil filanaya bilaash lagu ma qaban yeedmar looguma kuma iman wallahi iyadoo dhacaysaan ugu tagnay buurta oo geeri filanaya hadii la qabto oo hubaysan oo waliba hubkoodu u dhan yahay ilaaha noo fududeeyay ilaaha saamahada koowaad subxaanahu wa ta'aala leh ma hada labaad waxaan u jeedinayaa maamulka gobolka aday barasaab saabka tahay maayarka taliyaha ciidanka oo dhamaantood si hagar laana uga qayb galay muddadaas ay arintu dhacsanayd kulli mar hadaan iyagiyo nabad qaba iyo annagiyo aan dhinacnaba odayaal iyo muxuu ahaay ciidanba nin qaba islaha iyo cid kastaaba aan waxba gaarin oo wax Ilaahay loogu mahadiyo waligeena daweynu wada shaqeynayno isku mid baynu hayn marka anigu aad baan u bogaadinayaa mar labaad mar saddexaad waana igu xisaabtamaysaan kastaba ha ahaadaane iyagana waxaan ka codsanayaa inay sidaas ay noola shaqeynayeen kulli deegaankana sidii uu noola shaqeynayay inay noola shaqeeyaan ba ayaan iyagana ka codsanayaa ka hawlgalay hawsha ilaahayna ku soo guuleeyay guusha wala wada leeyahay guul darradana cid bal ugu calaamada guusha wala wada leeyahay gobol ahaan baynu wada leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu mahad celinayna arinta sida uu inoogu soo guuleeyay ilaahay baa mahad u sugnaatay mar labaadka waxa mahad ballaaran leh oo aan mar laba ilaawi karin beeshii Cabdalla Arab ee uu marxuumku ka geeriyooday ee sida wanaagsan ee gobonimada u samirtay ee sida wacan ee gobonimada ninkii ay afduubeen u soo celiyay gudoomiyaha gacanta u soo geliyay mahad balaaran bay leeyahay aniga iyo maayirku markii nala qaybiyay la yiri warday waa halkii nimay maraysa dhaxda markaan soo soconay ilaahay waan ugu kashifin baanu lahayn shalay taan ugu guulaysanay baanu soo noqonay qaraabadii ehelkii oo ka baxay marxuum ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistii jinaasiyo gacan ka xaq daran baa dishay ayagana samiriyo Allah haddii masuubo dhacdo tan oo kale ay dhacdo faraare yeelataayo meelo badan baa laga yaabaa in xaq darro loogu kufo tuhun badani dhaco mas'uuliyadda degmada iga saaran waxa ka dhacayna soo afmeero oo soo afjarro iyo dadka maskaxda aan qaangaarka ka ahayn oo laga yaabo inay aniga ii tuhmaa falka idaacadana ka hadlay inaan soo afjarro faasha inaanu anagu wax ka qabanayno ka dambeeyno hortaan kala cadayn ugu dambeyntiina waxa soo afmeeray shirkani jaraa'id barasaabka gobolka Togdheer oo ka marxaati kacay habkii wacneed ee loo soo qabtay dableydina dishay marxuum Axmed Hurre oo lagu dilay duleedka Birco odayaasha deegaanka ee ka soo jeeda labada dhinac waliba beesha Axmed Faarax oo aan u kala harin hadday tay maamul iyo madax iyo hadday tay gudi iyo hadday tay cuqaal aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigana u mahadnaqayaa beesha Cabdalla Arab oo iyaguna runtii si fiican noola shaqeeyo arinta nagala qayb qaatay oo aftuubkii ka dhacay oo kowkayay gudoomiyaha Arab Bari Sheekh Cabdiraxmaan iyo Caaqil Cilmi oo iyagu labadooduba si fiican noola hawlgaleen iyo gudoomiyaha xigeenka iyo taliyaha asluubta si fiican hawsha noola galay uguna soo guuleysteen soo qabanno ninkii gacanta naga soo galiyay iyo gobol
waxaa naga mudan gudoomiyaha waxaa naga mudan taliyaha qaybta booliiska oo runtii aad iyo aad arintaa u dib jiray u galay halkan ognay iyo waxa ku wehelinayay xildhibaan bidhi oo siinayo shahaado gaar ah oo ayuu naga muday xildhibaankaasi waan nooga suntay sidoo sheegay kayd xildhibaanadu nooga mudnaanay Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad shabakada Hadwanaag News magaalada Burco